maalin maalmaha ka mid ah ayaan intaan kacay dareemay dareenka ah mar raba noloshaan ku noolahay marka waa inaan isbedelaa sheekadaadu waa la sugayaa in la qoro ama looga shakeeyo dadka ka dambeeya dunida isbedelku waa adeeg bilowda marka xigta waa isku dhaxdaadasho laakiin dhamaadka wax waliba waa qurux wali ma gaadhin waxaan rabay laakiin waan kaga dhaway shalay kuma guuleysan kartid inta hadhay baaqiga hal maalin stage oo ku guuleyso guusha taala maanta yaani ku dhaafin kadibna maalin walba ku celi sidaas oo kale maalin walba kacdo adoo caafimaad qaba ilaahay wuxuu ku siiyaa chance cusub sidaad u gaadho hadafkaaga ee ka faa'iideyso yaanu bilaa macni kugu dhaafin noloshu waa waxa kaliya hal mar soo mara adduunka adigu hal mar baad jirtaa ee ka faa'iideyso nolosha oo samayso maalmo guul ku dheehan tahay samayso maalintaada fiican uma baahnid maalin walba xirfad kugu filan si aad u bilowdo maalintaada adigu dhaqdhaqaaq wadadaad kula kulmi doontaa ha isku dayin mar walba inaad absolute perfect noqoto ee waxaad isku daydaa inaad ka fiicnaato shalay hore kala baro wanaanshaha u dhaxeeya waxa ma garanayo iyo waxa wali ma baran furaha guushu waa bilowga wax xataa haddaan diyaar u ahayn wax fikrada kama haysatid amba ma taqaanid xirfada kugu duwan ka hor intaan istijaabin awoonad wax bilaabin micnaha wax bilow maahan sidaad hadda u fiican tahay ee micnaha waa sidaad rabto inaad u fiicnaato wax kastood guul uga baahan tahay adigay kugu xiran tahay marmarka qaar wax kastood u baahan tahay inaad noloshaada ka bedesho waxaad ku bedeli kartaa 30 minute kaasina waa fikirka geesinimadaada ha ka cabsan inaad fashilanto ee ka cabsan inaad isbiigto ha ka cabsan guuldarrada waayo guuldarradu waa wadada guusha inaad khatar u bareedhaa waxay ka fiican tahay qoomamaynta gabiga kale ama dhinaca kale cabsida waxa yaala xorriyad samee wax kastood rabto hana ka cabsan inay xumaato ama fiicnaato ee muhiimadu waa inaad ogaato waxaad qaban karto dhamaadka wax waliba waxbaan ka qodomaynaa chancekeena soo maray ee aynan ka faa'iideysan noloshu ma laha remote sida TV-ga oo kale ee dhaqdhaqaaq oo adigu ishaag inaad noloshaada cusub gaadho waxa ka xiga kaliya go'aankaaga qofna kuma imanayo inuu ku badbaadiyo sidaad u gaadho riyadaada ee adigu isbedel haddaad adigu noloshaada maamul weydo dad kale ku maamulay oo tooda maamulay noloshu waxba kuma hadiyeedanayso haddaad adigu doonan oo gacantaada ku soo qaadan kaliya adigu waa inaad go'aansataa ama hab u dejisataa sidaad u maamul lahayd waqtiga lagu siiyay guushu ma aha nasiib ee adigu waa waxaad u shaqaysato dadka intooda badan waxay raadiyaan marmasiye xagay xal uga raadin lahaayeen dibkooda hadda taagan raadi wada aad ku xaliso dibkaaga ee ha raadin marmasiyo isweydii waxaad hadda qabanayso ma ku kaxaynaya hamigaaga mustaqbaleed jooji waxyaabaha yaryar ee fudud ee waqtigaaga ku luminayso oo bilow waxa saxda ah ee rabto inaad qabato waqti ma hayo waa marmasiye dhammaantiin waynu haynaa waqti inagu filan ee inteena badan waxaan u isticmaalnaa caado xun ama meel aan waqtigeena lagu talagelin subax waa kelmadda ugu khatarsan nolosheena waxay noqon kartaa calaamadda rajooyinkeena sidoo kale waxay noqon kartaa sababtay riyadaad u rumowdu weyday noloshu mar walba way gaaban doontaa hadda bilow waxaad rabto deedna eeg waxa dhaca inaad in badan fikirtaa waa sida majarafad aad dira adag ku xuqayso laakiin aad wax faa'iido ka helahayn qasab ma aha inaad wadada dhan garanayso sida hore ugu socoto eeg soco oo dhaqdhaqaaq qaadna talaabada xigta riyooyinka waaweyn waxay leeyihiin bilow yar wadada ugu fiican ee riyada run uga dhigi karta waa inaad kacdaa maanta qabo ama berri ka qoomamee maalin kaliya mise maalintii ugu horeysay adiga go'aankaaga weeye